ضلالة. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة في الله، إن شاء الله عاو جمعة سداد بشهر رجب سنة كوني أفر بقول يصدن يتضبا هجرية أفر يطبن بش أفراد لبا كوني اللحية طبن وحين كبرنا إنه هدي الله يدمه أي إنه كبلابته مسجد كان روضة مقالة بوساسو ندودي أفر يطبناد حرير كهيد سند لها هيد كدع جرتي مقالة انت بدنا مسجد كان كبحيسي تاريخ ذا ندوين كان يسلكوا صوب بلودين موضوع دروية وحين كوقف لان أفر يطبن كاسنة إن يسحرير أسعتي انت بدنا علماء أوجع عن صوماليا أي كقيب قاتين ندودو ومتكمدة أما الطريق كمدة الطريقة أي علماء كوجودنا واجب كرب الساري إن أي حق دتك جارسيان إن الدين تأبياميان وأنا إن هب ونكسن أو موضوع إن ميلها أقوم مهم سن أما دينعيادي سأقوم مهم سن إن مدكوا بالله الله وحي إشكال يا وحي سؤالان اللوجة جواب أمضى ندوده وحى كغيب قادنا يا إن شاء الله أنت بدن علماء أدوذا أركي دونتان هدي الله إدمه أياك وذا قيب قادنا يا وحين ككوبان تهي ندوده برنامجيات وبلارن دروس أما محاضرات مسجد ككدعي دون تهمينكي أيا كمده وحا كمده خطبوين جمعات ومساجد مقالة انتو بدن لقد جيدين دونه وخصية إسلام موضوع عن ندوده waxay ahaan doontaa duruus iyo muxaadaraad la siiyo iskuulada macaahida iyo jaamicaadka magaalada intooda badan ayay ka koobnaan doontaa waxay ka koobnaan doontaa duruus iyo muxaadaraad la siin doono dumarka oo ayaguna goobo kala duwan oo magaalada insha Allah lagu siin doono seminaaro ayaa la socon doona iyo dowraad la siin doona insha Allah qayb kala duwan oo bulshada kamida sida ganacsatada iyo maxaan ku iraahdaa bulshooyinka qaybaheeda kala duwan ardayda maxaan ku iraahdaa nabadoonada iyo ru'asaa'ul cashaa'irka iyo ayaa kamid noqon doona hadii Allah idmo waxa ka noqon doona nadwooyinka dhinac socda oo insha Allah warbaahinta iyo qalabkeeda ayagana lagu la hadli doona ayaa insha Allah kamid noqon doona ندوة سنة كان لبا موضوع وآد مهم وقت كان هذا اللي جوجو ومدة الصوماليات أي إن شاء الله دوين دونتا لبداس نقضد وحوية أخلاق ذا يسلوك إسلام كوناكسن أي كهل دونتا إن شاء الله سنة كان وحيكلا إن شاء الله أيضا كهل دونتا إسكو إماتنك يمد نمدا يولال نمدا يود الجركة ومدة إسلام كجودهان gaar ahaan ummadeenan Soomaaliyeed oo tafaraaruqa iyo maxaan ku iraahdaa kala tago oo dhibaatada ku hayo ayay insha Allah sanadkan daweyn doontaa hadii Allah idmo waana sidaas oo sanad walba wixii markaa taagan oo azma guud ah ummadda islaamka dib guud ahaan haya ama gaar ahaan Soomaalida ayay culimadu mowduuca u dooraan sanadkan mowduucaas loo dooray ummadda islaamka oo akhlaaqdeediina fasahaad ku jiro wada jirkeediina dhibaato iyo maxaan ku iraahdaa oo hayo labadaas mowduuc oo inagana si gaar ah inoo haya umma islaamiga guud ahaan haya ayay insha Allah sanadkan daweyn doontaa mawaadiicda faraha badan ayayna insha Allah ka koobnaan doontaa sidaan idin sheegay magaalada qalabkeeda warbaahinta oo dhan baa ka qayb qaadan doona waxa kala qayb qaadan doona qalabka warbaahinta oo kale waxay insha Allah nadwadu inta ay socoto si toos ah uga socota oo mubaashara looga dhageysan doona website-yada TV-yada wata oo halgan Puntland Post iyo Al-Minhaj bayjajkaas ayay si toos ah uga socon doontaa insha Allah inta ay ku jirto waxa kale oo laga dhageysan karaa meelo fara badan oo website-ya ayaana laga akhrisan karaa cod oo maqal iyo muuqaalaba laga dhageysan karaa Sanaag Post Garowe Online Daljir Somali Channel Puntland TV ayaguna kuwaasina way ka qayb qaadan doonaan
idaacadaha SBC iyo xigmana alxigma iyo SBCna si joogto ah ayay u faafin doonaan haddii alla idmo nadwada insha allahu insha allahu nadwada sidii aynu naqaanay waxay ka koobnaan doontaa habeenada intooda badan laba qaybood oo ah darsi muxaadaro ah oo culummada mid ka midii uu soo jeedinaya ama qaar ka midii ay soo jeedinayaan iyo qaybta dambe oo noqon doonta su'aalaha ama iftaha ay culummadu ka jawaabi doonaan insha allahu waxaa insha allahu waraaqa sidaynu u naqaanay waraaqaa laydin siin doonaa marka qofku su'aalaha uu rabo ku soo qori doonaa dadka ina ka maqan ee dibadda ka dhagaysanayana kuwana qoraal ayay website ama meelo ugu soo gudbin doonaan kuwana taleefonna ayay ku soo gudbin doonaan oo dib ayaanu ka soo sheegi doonaa insha allahu ayuha alikhwa caawa oo nadwadu bilow tahay insha allahu laba darsi ayuu ka koobnaa laba mawduuc ayuu ka koobnaan doonaa midka koowaad waa kalimaha iftitaax iyo horudhac nadwada u ah ay culammada qaarkood inoo soo jeedin doonaan iyo isimada iyo darsi ka mid ah daruustii maxaan ku ihahdaa nadwada kii ugu horreeyey oo inoo bilaaban doono oo inoo soo jeedin doono sheekh akh maxamuud xaaji yuusuf oo ah alakhlaaq alxamiida min ahami muqawimaati binaa'i lmujtamac sida hortiina ka muuqata intiina masaajidka ka arkaysa ayaa labadaas mawduuc ayaan qaadan doonaa waxaynu ku bilaabi doonaa insha allahu kalimaadkii iftitaaxa ahaa waxaana ugu horeyn doonaa aayaad min kitaab illaahi tabaaraka wa tacaala oo aynu barako uga jeedno iyo maxaan ku ihahdaa in aynu barakaysanno mawduucana hordhac u ah wacdina inoo ah aayaadkaas waxaa inoo akhrin doonaa akh maxamed bare maxamuud asaga ayaan hadda ku soo dhowaynayaa fadal mashkuuran baaraka allahu fiik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بارك الله له وأحسن الله إليه وبارك الله فيه وفتح الله أخ محمد بر محمود وآيات كاس عجيب كإنه آخرنيي وكتابك إلهي كمده إلهي أسجنها كأبا المريو إننا هنا كدجو كوا مغلا أو كوا حقاته أيها الإخوة الكرام إن شاء الله كلمات افتتاحها بين سي وضينا وحانا كلمات افتتاحها أو هردع يسودوين يمحنكو إرادة سين دونا شيخ حسن حسين الشيخ والد شيخ حسن حسين أسجع ينكسر دوين يا فليتفضل مشكورا شيخ حسن بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إخوتي في الإسلام إلهي بين مهدنا إن مهد أن لسوكو بكرين إنو سورة قليي inaynu halkaas dadka inta la eg ay fadhiyaan masaajid iyo dibadba iyo meel walba oo ay u fadhiyaan inay halkaas ka qaataan nuurka ilaahay oo fidaya oo ay ku dhageystaan ilaahay dacwo diintii uu inooga tagay nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo inoo soo dajiyay inay halkaa ka dhageystaan waxaa inoo soo socotay macnaa ilaa midkii macnaa 14aad way nadwadantii 14aad muddadaas ay soo socotay de khayrkaas baxay nin kasto inaga mida waa inuu niyoodo fadhiga uu fadhiyo inuu yahay talibul ilmi uu doonayo hara furto weelashiisa wax lagu qaato qalbigiisa ha furo dhagihiisa xaadir qalbigiisa xaadir ha noqdo dhagahana ha furo say wax u qaataan oo wax u qabsadaan oo u weeleeyaan oo dib u la noqdaan oo cibrigooda inta ka hadhay uga faa'iideystaan khayrkani ma garanayno dad badan oo inaga mid ah inuu soo gaari sanadka dambe uu gaarayay in kale dad badan oo inaga mid ah dhulka gali doona maxaa yeelay muddadaasi cimrigaaga waxba soo marmara cimri baynu ku dhex jirnaa soconaya dhammaan doonana goor aan dheerayn marka cimriga maalmo waxbuu ku soo dhamaadaa maalmaha ugu khayr badan waa maalmaha sidan oo kaleeta oo xilli uu u fadhiyo ilaah dartii halka oo niyadiisu ay tahay inuu ilaahay ugu dhawaado diintiisa cilmigiisa loo kulmay darteed malaa'iktu ay nagu macnaa inoo ducaynayso khayr oo dhan maaragtay oo ilaahay mubaahonayo maaragtay
malaa'igtiisa ag joogta leeyahay dadkaas halkaa fadhiya oo wax isu akhrinaya oo wax isbaraya oo wax kala dhegaysanaya arrintu waa arrin weyn oo qofka muslimka ah oo soo gaadhay waqti soo maray oo thamiina oo aad u qaali ah weeye marka in la dayaco oo meelo cidla ah iska joogo gidaaran laga sheekeeyo qof yaynan ugu dhicin aynu qaadanno qofkii joogana ha arko nicmada uu haysto inay mid weyn tahay nicmada kolkii aad dareento kolkaad garato oo og tahay nicmo inaad ku jirto dee nicmadii waad ku shukrisay haddaad se ogayna waxa uu iska tahay iska kulmay ay kula tahay ma aha waa inaad waxan meesha loo yimid in ilaahay la isxusuusiyo oo ilaahay loo dhawaado oo wuxuu ilaahay macnaa diintatan ilaahay rasuulkiisa ku 400 sano muddo ka badan ayay rasuulkii tagay diintaasi sidaasoo kale dad u fidinaya baa ina soo gaarsiiyay innaga halkan ayna joogin jasiiratul arab ma ayna joogin makana ma ayna joogin madiinana ma ayna joogin halkan ayna ku noolayn ama meel lamida marka ilaahay diintatan haddaan la fidinaynin oo dad sidaasoo kale ugu dadaalaya ayna jirin dee ma soo dhaaftay jasiiratul arab maanta waxaynu dareemaynaa shanta qaaradoodba inay dacwo ka socoto iyo diin oo ilaahay cabsidiisa ay wax ka jiraan balaayo iyo shar badan way jirtaa walaakiin khayr badan baa jira sharta badan oo jirtana waxaa dhacay dadka muslimka ah oo diintoodii macnaa ka jaahil noqday oo garan waayay nafceedii iyo barwaaqadeedii oo wax kale ka doondoona inay khayr ka helaan عزي يا شرف بينو كدوني وعالم الإسلام ما أنت ماشوا مرة يوينو قرنينا واحد دوليين ودينتيو لقيت هجي ما عفوا ولا شيكتا ما أنا صومرين هذا إنك قرن قرين تشوجنو بدرس تدوات سنة كبدا ما أنا وسوي تشوجي بدرس يدا أو واحد قرني ما أنت مالين لقى في عينه ولا قديم بدنيها ولا أقوم بدنيها ما أنا صومرين شرط إيه مصيبين كإيه مشاكل هذا دعها هنا وقوات أبدا marka waa had iyo jeer adduunku sharka ma dhamaanayso tartan baa lagu jiray hadii uu sharta khayr uu la tartamayo aakhirka waxa u hari doona khayrka qul jaa al haqq wa zahaqa al baadil in al baadila kana zahuqa ma'a haqq haduu yimaado xoogaysto shartu way yaraan marka waxa aynu u baahanahay nadwadan cilmiga ah oo ilaahay uu inoo keeno sanad walba iyadoo iska socoto waxa kale oo dhan xoolaha lagu bartaa dib baa lagu bartaa culimo afarta koona ka timid adduunka yaa inoo jooga oo khayrka inoo shubaya muddadaas aynu hadda halka ku talagalnay waxa aynu u baahanahay marka qof walba qofkay anfacayso oo waanada iyo wacdigu uu facayo waa midka iimaanka leh wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin macna anigu waa maqli jiray waan maqlay dad baan aragnay leh maxaa ka dhagaysanay amba waa maqli jiray war ma aha arintu saa haddaad wax kasta taqaano ama cilmi kasta ogtahay ama midka ku akhriyaa aad ka badiso haddana waxaad u baahan tahay wax ku xusuusiya oo qalbigaaga markaas qoya oo qofku haddaan xaq la isu sheegaynin wax walba waa istaagi lahaayeen marka waxaynu haysanaa nicmo aad u ballaaran oo maanta aan hore u soo jiri jirin oo dhowr iyo 20 sano hadda burburka iyo masiibooyinka ay ka dhacday bilaadan aynu ku noolnahay inagu wax khaas ah ilaahayna siiyay dibka jira ma badnayn nicmo badan oo cilmi aan waa la bartay walaakiin qodob baa inoo aan ahay wali oo sidaan rabnay u dhicin macna dadkii bartay diinta intaas 25 ka diinta bartay inay waxa la rabay ku amal baa inaga yar oo waliba u badan dadka daayarta هو خير بدن أو دايرنا واجران ولكن كل كأنه أجنب بقول كم تطبعات أنا وحكس كبدن يدبد تشوف في ذوجات تجيسرية وقراءة حفظ ودين تقرنية وحن مركب أبوي علينا وروقت كان يكسر نقول ما يدك يدك وينه وقت وكسامرة ونا كدافع أنتوا خير كدافع هيو قلبك إنا ينفرنا دين تنسان وبرا لهن وجعل بحلهين تاسع والله ثم والله عزي قادون كيبتك آخر لو جارا وحكى ليه ساينس لبرتايو فلان قوم فرله waxa cid lagu ma gaaro waxay og yihiin ma jiro dadka saynisyahanka iyo kuwa aqoonta dheer u leh waxyaalahaas haduu diin ku darsado waxa ma waa wanaag walaakiin haduu ku kaaftamo ismoodo inuu wax yahay waa jaahil suutu kala aqoonin aan waxba garanaynin macna maalmo waxa soo qaaday dhigaystay maalin nin la leeyahay adduunka Soomaaliya dadka joogo oo aqoon badan yahay oo la nin gaala ilaahay ha u naxariisto garan la qofka naxariista ilaahay looga bariyo ma qof ilaahay وحيدا يا مسير قف كلا ويه إسكام هذا يقال كي عبادة ملك عبادة إنه إلهي لو بري كرو مركز جهل محو كاري دين تاسنين كان قبصنين أو خد من مال وعز ويا لما هل طريق ما فروا طريقة إلهي يو عز قال اللي يروح تلاقي عز قال إلهي الرسول كيس المؤمنين تعالى قل إن العزة لله وللرسول وللمؤمنين قف مالك أنا كده دون يو
haddaa dhallinyarto cilmi baranaysa cilmiga bara adduunka yaalla oo dhan walaakiin ogow cilmiga runta ah oo ilaahay agtiisana wax kaga helayso adduunkana cizi iyo sharaf ku gaarayso waa cilmiga rabbaaniga marka yaan waxba ku sii dheeraanin hawsha waa rag baa loo ratibay walaakiin waxaan bidaaminayaa inay dadku dareemaan nadwada la samaynayo waxa looga jeedo in dadka jahliga lagala diriro jahli baa ina baabi'iyey waxa ummadda islaamka saa u galayna waa jahli oo diinta aan hoos loogu daadegin la baray hadduu bartayna qur-aanka kariimka oo diinta ugu weyn dadku in badan baa taqaana maanta oon horey u aqoon jirin walaakiin in lagu dhaqmaa maqan oo ilaahay dad baa tegayo badaha isku ridayo le gaal halkaa joogaa waxaya wax ma hayaan ilaahay haddaad niyadaada ilaahay ku qabato waxaad cuni lahayd waa ku ag yaallaan adduunna inaad isku wareerisaba ma aha marka waxaan ku soo koobahayaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa cizigiisa iyo macnaa deeqdiisa faraha badan oo roobka iyo raxmada ah oo maqfirada iyo dambidhaafka ah inuu ilaahay inoo furo albaabaha adduunka oo khayrka iyo kuwa aakhiraba inuu ilaahay noo furo in ummadatan magacan sheegato ummadda islaamka oo dhan maanta dhibka haysta oo diinta intii laga tegay markaa la duloobay inuu ilaahay diinteena inoo soo celiyo cizigiina inoo soo celiyo sharafta islaamku lahaa yaan ilaahay weydiisanaynaa dadka maanta meel kale ka doonahayana waxaan leenahay ilaahay iyo rasuulka iyo diintooda iyo ciziga sharafta iyo dheregta iyo barwaaqada agtaalaaye u soo noqda ilaahow noo soo celi carruurta ilaahow noo soo celi dadka oo dhan ilaahayow dadka habaabay oo meel kale cizi ka doonaya sootu qalbigooda ku rid inay ka qaataan nadawaadkan iyo wacdigan iyo waanadan iyo khayrkan badan oo la isu keenay inuu qalbigooda ku dego oo ay ogaadaan in ciziga iyo sharafta iyo diinta iyo barwaaqada oo dhan diinta ilaahay oo la barto lagu dhaqmo inay ku jirto ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu haynoo sugo ilaahay nadwada iyo khayrka aynu soo wadnayna mid inoo sii socda ilaa aynu ka dhimanayna ilaahay inooga dhigo ilaahay aynu ugu cafiyo intayna isu timid iyo intay kale oo dhegaysanaysaba ilaahay waxaynu weydiisay inuu dembigeenna dhaafo naartana inaga xoreeyo albaabaha khayrka iyo raxmada iyo naxariistana inoo furo khayrka aan doonayno aakhare iyo midka aan doonayno adduunkana ilaahay inoo furo wasala allahu calaa nabiyina muxamed wabilaahi altawfiiq جزا الله خير وأحسن الله إليه وبارك الله له الوالد شيخ حسن حسين كلمات كاستر دارنك يوعدك إلهي إنك هينا كدغو كوا أنفعه كوا أنفع الله إنك هينا كدغو أسغنا إلهي سبحانه وتعالى كعب المريو أيها الإخوة الكرام ولي كلمات كي علماء أيان سيودنا أيضا نسيدو كلمات هردعة يسو دوينا وحاسينينا شيخ ظاهر شيخنا شيخ ظاهر أو عبدي كسو دو شيخ فليتفضل مشكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندوات كان لقبنا أيوه كلبا مشكلة حاضرة مشاكل وين بدين هنا بالغو إفتيمية كان هرتين نوجد بيسي وحنا كو إفتيمني أضرار تيرفته شيعة واسورو ذين لنقول نقديو لكن سيدي يراهدين المي يعقوب نبي الله يوسف ولكن مركي لقى هاي وما كنا للغيب حافظين بينا أبوه مركو عذر دارنا غيب ور كمان نارهين أنا ور كمان نارهين لكن أرنتي عن كهذا الله كالهوري ومبعدات زمن كان فسره سان وشيء إنه وين نقط تدك سورو بيجي مركز وضد يربي أهايني كسكاب ككو أها أما أنا فهمنا وأنا لا فهمين بنو ملايين إياه هذين ده الشيعة هو استكوا ذني وأنا لا فهمين تنا واحد كوساب سنتهاي سيدا هذا بعمواك أدار كيسان مشاكلك كجل ذلك مسلمين تقول أهان أنا واحد نقول قرادة يسني مشكلة فلسطين بكو قرادة يسني أنا وير بانكو قرادة يسني يهودو ذلك أي فردسي ما أنت عالم إسلامكو وفلسطين أما هو بكسير لي تامبا بس أبغى يا بدان تميلها قاركود بس كفي عنه
oo dafal qarbiya ka fiican daanta galbeed oo waxay noqotay mushkiladii dadka muslimiinta mushkilad caam ah guryihii muslimiinta inay dhammaan wada ololayaan mashaakil guud baa jira dee wacdina waa jiraayo yabo Allah subxaanahu wa ta'ala oo ummadana loo yaboohay ilaa qiyaam saaca الطائفة المنصورة عهد مكة وآد يا آد لو دباتيسنا وأصحابتي لفرديي بآياتني كسودكتي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نبينا وحده صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها إلهي وحييك وإيقا دقي سيدا هذا حيرا أوكله dhulka barigiisa iyo galbeedkiisa baa loo soo ururiyay dhammaan faraytu mashaariqaha wa magharibaha dhinac kasta arkay marka barina waa arkay galbeedna waa arkay dadka meesha oo dhan wa inna ummati sayabluqu mulkuha ma zuwali minha boqortooyada ummadaydu iyo maamulka islaamkuna wuxuu gaari inta la isoo koobay sidii baa dhacday sharqan wa qarban bu islaamku u kacay وقت دير ساسوها امتحان بقى مركز كجرة وحجرة فتن وحجرة ابتلاء ذلك المسلمين تي مركي أي جلعين ده إلهي ملكي واقع قاضي أما ظلم جاي سميين صوبته أي مذو وحي لهذان دولة ده كافرة ده وعدالة كصعوته وكافر كفر جي عدالة الله بيكليين وحكاد دائم بدنتاي مدة مسلمة ده ظالمة ده ولذلك دولة إنجليز كان مدة بيجرت إلى هذا نويد السنتاي إلى هذا نبدأ وحوي تيرر بولي واصل صوبته وامحي وحبضا بحير نيسان بعيدة كبضا وفك هذا يقبضه هذا نيجي كجور عي جدك عمال لامية لندن هري لجمة توجنينا وحل كيني محكمة أنت على حرية محكمة للساري محكمة بأمريكا وقلت إنه هذي أنا أركي كاسو كله نين كام سو قاعدين ماشي ست كتير لهيد مركا وحوي مشاكل كهذا عالم السلام كجرة وأم المسلمة إنه جزء كم إذا نهي ولا ما ركتي ولا وذاك سنينا مشاكل بدن باجرة وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فتلك مصيبة أكبر مشاكل بدن باجرة سلام مركا هذا الرجوين يا وعدي يا وناك باجرة إلهي سبحانه وتعالى وحنبرينا أمدتنا إلهي سيدا خير كله الشيخ بعد كدعيني إلهي نوافجيه هذان هو سود دادقو أمد الصوماليات وذا شركة يوحي لو ننشر الصومالي يقارن ما دي الصوماليات إلا الراديو ولا إسلا الراديو الصومالي ولا جمارمان وقف كستكو فكره وصوماليا إنه أرتاكو فكره إسلام كنا وحكي الشقية وحوي مذو يوذا شر وحقاقة هذا اللي سميه وحوي ما لا يترك كله لا يدرك جله وحد لا دمين كرين لقى ما وذا تكره أفر يبدو حللية هنا وخرافات ومد المسلمين مد الصوماليات لو كلا كحينا يوي وحلا إلى لاندير يا درس يقول قرآن لاندير كورا جننا وحسنا مجرى خرافات وي الأمة الصومالية أمة دي هرت جود إسلام كأهيد اللي يسل الرادية وي لكن خاصة منطقة صوماليا الأورنجري وقرن كأهيد هو ذا شرتي إن ما أنت لقوك لك حي ولا يسكول الله يدولد قبلات عيدا كبت آدي آد وحن وانا حمر كامغلو دولد قبلات انت هذا الشيء ترى حدود ديدا حدود وي حدود ده مركا أي حدود تايبل أي سلقة حدود السنة إياه آد بن وانا حان مركا مغلى هذا الكاس من التشري واجي هوري ومن الناقر هذا يسن من النار مغلي تشرين ضد كاين للراديو للراديو أزمات كي كجرتا أما مشاكل كي كجرتا وما داس وحو بعد مركا أخلاق ديدي هي عافمات كيجي هي عقيدة ديدي هي دقاله هيجي هي دول كيلاهيد هي ضدنمة ديدي وحا صورن إلا يوحك سيبضن هي بده هيجي بري هيجي هي حولها هيلاهيد إلا يسل الراديو ولا جمارمان ندودني مركا إفتين ويه مقديال كابضن وحلاقة إفتين من طونه
culummada timid oo gobollada hadda naga fog ka timid uu ka mid yahay Sheekh Maxamuud oo caawa leh waxaan leenahay xasanaadkiina iyo wanaagga aad qabateen iyo safarka ilaahay miisaanka aakhiro oo xasanaadkiina Allah inuu kordhiyo cimri dheer iyo amal saalixna Allah inuu siiyo Sheekh Maxamuud waa ka mid ah Sheekh Cabdinaasir baa ka mid ah oo isna hadda soo galay magaalada iyo inta kale oo inoo imanaysa dhamaantood waa soo dhaweynaynaa qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa oo ma aragtay maxaan ku raada ugu jiro maxaan ku raada raxmad iyo shafaqa ku jirta ku soo dhaweynaynaa dhalinyaradan duubayana iyagana waxaan leenahay maxaan ilaahdaa khayr Allah in siiyo oo aad iyo aad noqol shaqeeyay dhalinyaradan timid iyo odayaasha wixii ku jirana oo masaajidka soo gashana dee khayr Allah in siiyo anu dhaardood waxaan ka qayb galay mutamarkii Kampala hawada waxaan uga dirayaa salaan iyo hambalyo waxyaalaha idinku qabin bay qabaan wala iyagu ay joogaan dawlad gaala ah masaajidka ana hadal baan idho waxaan idhi annaga soo dhaweynta iyadu lana soo dhaweeyo waa in masjidka la soo buuxiyaa wax kale soo dhaweyn ma wixii kale waxa waash waxa dhacay habeenka ka dambeeyay masaajidku soo buuxsameeyay ما بحسم هبينك ولكن وحوي هبينك وجودن بيجو وماركت وصحمة بطنها والله يابي رغبة يوناك الشراء يوني بقى ضياش كشقين أيوه صارح كلي إنك ضياش إني تجارتني بيبيتوين كأيوه دنيا أيوه محان هذا بخار أيوه سياسة أيوه الكاس اللي قلت حيه الكاس ما عرفت مشاكل وما أنت وردنا يكوشرين وما أنتوا أنا كيش قينيين بابا حنقول هذا ولي بفيري ندوة سوح سعودي أما مؤتمر كسوح سعودي بعد العصر إنه هذا أنا بعد العصر محاضرة هل تجيديو عد إما يسابي شرطه وصوفر السن هذا وحوار جدد كي وصوح حرمي الباب دي بينك صوح حرمي بيرد آدم مالي أنت يرى صوب الشنا مركب بالله عليكم بسرور بكرتا أنا وصوح هذا أنا ونشوفه هاي أنا علوم هذا الصور ويسان ومركا كصبرتان وأيام قلائل وأنت كصبرتان ودعوة يدتك صوك حيسان ومركا يدتك دقيسان علماء دقيسان ولا فائدة يستدمان صوت وقف قال هذا القصة جيدينية حضو أركض مساجد كو تشقة ووجد بون حيالا بدن ورسوك كسو فكرين باكو سو دقية أما وماركت يو محاضرة كجيدينية لكن هدو أركا خلل أما تدير هدو أركو وحو نقونيا دفرديد أما وحو نقونيا نو حوغا يرهيستويو قل بدي قفكو وحو هذا لا سو قرر مسويل كاستك قل وحي كجربو سودا يا موقت مركا إذن كرا وحا لينا قرر بينا سو حاضرتان ودادك سوك عيسان لأن يرد مركا يقونا إلالينا يمسجدك ودينا أمنيك وحينا يقو أمنيك إلالينا يهدنا دادكو وكلا جراي odayaasha iyo dadka marmuuqa oo macruufka ah iyo inay iska soo daayaan way dadka kale oo markaas dhalinyaradana amnigiina baa la ilaalinayaa wax dhigo hadda meeshan jirtay ma ay jirto marka barakallahu fiikum dhamaan qolada soo maaragtay alminhaaj oo ka soo shaqeysay nadwadan oo soo maaragtay u soo fikirtay oo cinwaanka soo dhijisayna iyo inta ka shaqeyso culimada ahna khayr Allah siiyaban leeyahay iyo inta halka ka jeedin doonto dhamaan intaasaan inuu oran lahaa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazallahu khayran sheekh daahir aw abdi allah ka abal mariyo kalimaadkaas qaymka oo inoo soo jeediyay insha Allah intaanan muhaadara u gudbin kalimaadkii iftitaaxa ahaa oo furfurida nadwada ahaa waxa insha Allah inoo soo khatimi doona oo kelimada ugu dambaysa inoo daran doona beeldaaji cali faarax asaga ayaan ku soo dhaweynayaa fadal mashkuuran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
salaan ka bacdi anigu doorka aan ku leeyahay waa duco oo waxaan u ducaynayaa marka hore toba dadka mashaayikhda ah oo arrinka kan barnaamijkan wada oo dadka u faa'iideynaya oo diinta islaamka u shaacinaya oo dacwada wada in ilaahay cimrigeeda oo dheereeyo caafimaadkooda wanaajiyo camalkooda saalax ka yeelo ilaahay noo raajiyo si ay arrintaa dacwada ah dadka u gaarsiiyaan marka iyaga horta buro baan leeyahay insha allah buraan ducaa baan ugu ducaynaynaa insha allah innagana waxaan misna ilaahay ka baryaynaa in inteenna tan soo xaadirtay ilaahay noo dembi dhaafo iyo waalidkeenba keen isu raacayo ilaahay raxmadiisa ilaa khayr lagu helayaa inta kaleetana iyagana insha allah oo ina ka baqano islaamkaana ilaahay u naxariisto noona dembi dhaafo insha allah baan ilaahay ka baryaynaa dhibaatada haddeer ina haysata oo gaar ahaaneed oo soomaaliya haddeer meelaha qaarkood ka haysato abaartaana ilaahay ka saaro oo ilaahay barwaaqo ugu bedelo baan ilaahay ka baryaynaa oo caama roob caama oo naafo lahayn insha allah baan ka baryaynaa iyo nabaad khayr qaba insha allah ilaahay noo qadaro colaadana ilaahayna ka saaro tafaruqda bela ah oo soomaali lagu wadona ilaahay ka saaro ka shooda geliyo inay soomaali islaam yihiin si kastaba ha ahaatee yoom maalin ay ku fikiraan insha allah ilaahay u suurtageliyo inay soomaalinimadoodii iyo islaamnimadoodii iyo wadajirkoodii isku soo noqdaan baan ilaahay iyadana uga baryaynaa marka runtii markaan in yar ka idhaahdo allahuma salli calaa maxamed markaan in yar ka idhaahdo nadwooyinkii hore badanaa waa joogay waxyaabaha igu qariibka ah waxay ahaayeen nadwo kastoo la qabto munaasib bay ahayd oo waxaa la yaabaysaa sidii qof intuu isku hayay indhaha kala qaaday oo kaleeto ayay u muuqanaysay waxaa kasi haddeertii ugu dambaysay oo laga hadlayey shiicada laga hayay wax fikrada oo dadku ka haysta ma jirin waxaa moodaa inayna khatari lahaayeenba haddii arrintaas laynoo sheegay nadwadaa la qaban in shiicada islaam baan isaga haysanay oo sidaa sunniga oo kaleetaan dadku u soo dhoweyn lahaa inay ka sii khatarsan yihiin waagaasaanu si fiican baan loogu bayaamiyey arrimahaasoo kaleeto marka nadwada haddeer caawa joogtana waa nadwo aada u muhiimo weeye cilmiga iyo barbaarinta ama maxaa ahaaye dadka akhlaaqdooda hagaagsanaato waa kala duwan yihiin waxaa qofka ugu muhiimsan intuu yar yahay weliba akhlaaqdiisa in la hagaajiyo shayga guntu ka tolmaa haddii guntu xumaato ama irankay baa la yidhaahdaa soomaalidu dadka hama ay toli jiray iranku hadduu ka xumaado ma hagaagto inta dambe haantaas waa iska qalqalloocataa ma suubanaato in gala la geeyo oo caana lagu cabo marka sidaa darteed ilmaha haddii intuu yar yahay aan la barbaarin oo diinta lagu barbaarin oo akhlaaqda lagu barbaarin hadhowdii qaab buu u samaysmayaayoo lama soo celin karo waxaa weeye waxaa ka mid a carruurta inta gurigaa laga eryayaa habarta weliba ka eryaysaayo odaguba waxaa leeyahay wakhtiyada ugu daran duhurkii iyo in meeshii laga seexin lahaa wax loo sheegi lahaa war buuqooda iyo dibadda ha u baxeen oo dhulkooda ha ku soo cayaareen waxaas waa kaa waxay suuqa ka baranayaan wax xun ama cay ama wax la mid ah akhlaaqdii halkaasi ka xumaatay waxaa sii raaca maantay dhallinyarada maanta joogta khatar bay ku jiraan khatartay ku jiraan inay digtooni ka qaataan oo nin walba naftiisa oo horta ku adkaado oo kaga adkaado waxaa fawaaxishkaa iyo xumaantaa oo agigihiisa ka buuxa oo indhihiisa uu ku arkayo siduu ugu waaban lahaa inuu ku dadaalo in ninka saaxiibkiisana uu suurtogeliyo inuu wax u sheego waana u arkaa inay dhibaato u tahay qofkaasu hadduu noloshiisa iska jirona inay dhib ku nool yahay waxaa ka sii daran oo hadda bees u ah waa geedka jaadka la yidhaahdo waa mujtamacii waa baabi'iyey akhlaaqdii waa baabi'iyey reerkii waa baabi'iyey
qofkii nafsadiisa waa baabi'iyey caafimaadkiisii iyo raganimadiisii waa baabi'iyey dhaqaale waddanka waa tirtiray isagu fi kulli yoom intaasoo boqolaal kun oo dollar baa waddanka laga guraya akhlaaqdiina markaas cudur buu inakaga tegaya xun ninkii oo iska taagan oo nool oo aan 40kii ama 30kii gaarin mase ilka ma leh mase indha ma leh mase qurux ma leh mase dad ma leh mase akhlaaq ma leh aduu dhinac walba u eg balgeedkaas marka Soomaalina uma baxo waliba waa loo keenay wixii dhaqaalihiina saas ku qaadanayaan arintaas marka dhalinyaro iska baraarujiya anu hadda waxa magaalada waan arkay inuu ka soo yaraaday waxaan arkay hal meel baa lagu gadaa waagu hore meelo badan buu oolaan jiray waxaan arkay in la soo yareeyay baan u dareemay dad badan oo iska daayana waan arkay in kasta u badan yihiin cudur bay ka qaadeen badanaaba wax isaga daayeen hay'adda kan waxa way sunbaa lagu soo fiiray dhawaato leeyahay arintaas marka waxaan leeyahay horta akhlaaqda hadda mashaayixda inoo furaysa arintaasna waxaan is leeyahay waxyaabo inoo ku daran taas weeye intaas baan ku leeyahay oo raacsanaya waxaan kaloo raacsanayaa Soomaali 4.5 haday noqotaan lagu kala kaxayo waa loogu talagalay federaal hadii la sameeyay lagu kala kaxayo Soomaali waa loogu talagalay qabiil hadii loo sheego in lagu kala kaxayo loogu talagalay in iskarataa fiican waraan iskarano oo inaan Soomaali nahay islaam nahay aan iskarano oo si fiican wax isugu sheegno inta wax garanaysa inta wax garanayna wax u sheegto nimanka kan hadda muxuu kuraasta fadhiya dantooda eeganayaan waxa way waxa leeyahay diyaarada halka jabtay oo waagi saas loo buriyo anagu ma ahin saasana nahay anagu saasana bal leeyahay iyagu dambe ku haystaano waxa weeye wixii wadanku leeyahay ama xukunkaba cudurba weeye qofku iska jeclaysto iska fariisto marka waxa dadka loo danayn maayo wax badan baa loogu danaynin si kasta ha noqotay intaas waa intaan ku darsanayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan intii ka faa'iideysan noqono khaas ahaan inta nadoodu socoto inaan isku dayno in darbiyada la fadhiyo oo cishaa iyo maqribkaas laga faa'iideysto oo nin walba ninkii hadda caawa jooga uu suurta galiyo inuu ninka saaxiibkiisa ama laba ama saddex mid kasta waxa keenay inay ka soo qayb qaataan usaga damba ugu jidha oo faa'iidadu meesha ka helaya ninka kale oo keen oo faa'iideeyay mashaayikhdii la rabay meelaha fogogo timi cilmigii ay doonayeen in laga qaato waa laga qaatay ajar fiican iyo khayraad badan baa ka soo baxaya wadanka inkastoo meelo badan laga dhageystay sidaas anigu waxaan ku talinayaa waan ragga ku baraarujinayaa in la xoojiyo ayaamahaas kooban maxaa yeelay meelaha iimaanka waxa la yiraahdaa mashaayikhdii say inoo sheegay ama nabigu inoo ka sheegeen inay ninkii iimaan xoogaaya ku jiro in naarta loo deeynin marka iimaanku meeluu ku kordhayo baa laynoo ku sheegay inay yahay meelaha cilmiga iyo khayraadka iyo fadhigooda u yihiin in ilaahay noo koriyay midda labaad yaa sheedaanka loo kaalmayn sida maxaa wixii la soo jeedi karo oo dacwad ahaan lagu jeedi karo yaani in la isku taxallujiyo arintaas aad bay muhiim inoo ku tahay midda labaad waxa weeye dhibaatada in ka haysata dadka islaamka hadda lagu wado dayga qaab gaara weeye laakiin dadka qaarkiis ama dawladaha qaarkood meesha marayaan Suuriya meesha marayso Libiya meesha marayso Yemen meesha marayso waa u jeedaan Ciraaq hore baad u ogeydeen marka arrimahaasna waxa weeye muhiim weeye in dadku mandaqiisa aqligiisa oo kor qaado dabadna uu suurto galiyo inuu ninka walaalkiisa uga naxo sidaas baan ku soo gabagabeynayaa khayr baan ilaahay inoo ka baryaynaa idinka iyo inagaba iyo hanuun ilaahay nasiyo balaaran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاه الله خير بارك الله فيه أحسن الله